Hal dagaal ayaa sababi kara in nolosha iyo qiimaha dadka Soomaaliyeed ay laba jibaaranto. Shidaal qaali ah, cunto qaali ah, iyo shaqo la'aan. Intaasba waxaa sababi doona dagaalka hadda u dhexeeya Iiraan, Mareykanka iyo Israa'iil haddii uu sii socdo oo aan la barqaban. Su'aashu waa, ma waxaa bilaabo raba dhaqaale xumihii abid ee ugu darnaay ee dunida caalamka markii loo fiiriyo 1973 recession-kii dhacay. Dagaalka Iiraan, Mareykanka iyo Israa'iil ma aha arrimo siyaasadeed oo keliya, waa arrin dhaqaale oo saameynaysa qof kasta oo dunida ku nool. Maanta waxaan fahmi doonnaa sababta ay hal dagaal oo keliya ay u ruuxayso dhaqaalaha caalamka. Sidoo kale waxaan ogaan doonnaa saameynta gaarka ah ee ay ku leedahay dagaalka hadda socda dhaqaalaha dalka Soomaaliya. Dagaalkan Iiraan iyo Mareykanka iyo Israa'iil u dhexeeya wuxuu bilowday muddo laga joogo 3 isbuuc ka hor, kaasoo hadda la dareemay saameynta dhaqaale ee adduunka oo dhan uu ku yeeshay. Sababtuna waxay tahay bartamaha dhibaatadaasi waa marinka Strait of Hormuz, kaasoo ay maamusho dowladda Iiraan. Halkaasi waxaa mara maalintii ku dhowaad 20% shidaalka dunida oo dhan, taasoo u dhiganta 20 milyan oo baraleed oo shidaal ah inay meeshaasi ay mari jirto maalin kasta. Taasina waxay sabab ku yeelatay waddamada khaliijka oo ah waddamada ugu badan ee soo saara saliidda adduunka inay marinkaas ay soo marsii waayaan shidaalka. Taasina waxay ku tusinaysaa dhibaatada meesha ay ka taagan tahay ee saameynta ku yeelanaysa dhaqaalaha adduunka, adiga hadda daawanaya iyo aniga hadda hadlaaya. Xiisaduhu way sii kordhayaan marinkan Hormuz, maraakiib badan ayaa lagu weeraray. Qofna kuma dhiiran doono inuu maro marinkaas. Sababta ugu weyn waxay tahay shirkadihii caymiska ah oo ka noqday caymiska ay sii jireen maraakiibta, maadaama marin khatar badan la marayo aysan qaadi karin mas'uuliyaddaas, iyadoo aysan fasax siin dowladda Iiraan. Xitaa haddii uu Mareykanka isku dayo inuu waardiyo maraakiibtaasi, waa la weerari doonaa. Sidaas darteeda qofna uma bareeri doono inuu maro meeshaas. Marka ay saliiddu yaraato, waxaa sare u kaca qiimaha halkii barreel ee la iibinayo. Wuxuu gaaray $110 ilaa $120. Waxaa jirta khatar ah haddii marinka Hormuz si toos ah loo xiro bilahana soo aadan in uu gaaro halkii barreel $150 ilaa $200 ayaa la qiyaasayaa. Taasina ma aha sicir qiimaha saliidda ah ee waxaa dhici doonta crisis-ka energy-ga ah, sababtoo ah shidaalka waxaa ku tiirsan warshado badan oo wax soo saarka leh, kaasoo ugu horeeyo dalka Mareykanka iyo dalka Germany, kuwaasoo ah kuwa ugu badan ee soo saara warshadaha biraha ay ku shaqeeyaan ayagoo adeegsanaya shidaalka. Haddii ay yaraato wax soo saarka warshadahani, waxaa dhici doonta inay yaraato wax soo saarka cuntada. Haddii ay yaraato wax soo saarka cuntadana, adiga ayay ku saameyn doontaa, gurigaaga ayayna kugu imaan doontaa. Saliid qaali ah waxay abuurtaa silsiladahan soo socda: shidaal qaali ah, gaadiid qaali ah, cunto qaali ah, dadka oo wax yar iibsada, iyo ganacsiyada yaryar iyo warshadaha oo suuqa ka baxa, taasoo keenaysa dhaqaale burbur xooggan oo ka dhaca dunida oo dhan. Khubarada dhaqaalaha waxay ka digayaan in haddii ay saan wax ku sii socdaan ay dhici karto recession-kii ugu xumaa ee ka daran ama la mid ah 1973 dhaqaale xumadii ka dhacday dunida. Marka la fiiriyo intaasoo dhan, Soomaaliya waxay ku leedahay saameyn aad u xooggan. Sida maalmahan aan arkaynay, shidaalka gudaha dalka Soomaaliya lagu gado inta badan waxaa laga keenaa dibadda, haba u badnaado waddamada khaliijka shidaalka nooga keeno. Sidoo kale cuntada aan cunno iyadana 90% waa import, waxaan soo dhoofsano waaye. Iyada naftirkeeda saameyn xooggan ayay ku yeelan doontaa nolosheena, sababtoo ah markabka soo qaadaya cuntada shidaal ayuu ku socdaa. Shidaalku waa qaali, cuntada waxay noqon doontaa qaali. Sidaas darteeda guud ahaan nolosheena waxay noqon doontaa nolol qaali ah iyo cadaadis dhaqaale oo xun oo gudaha ka dhasha haddii aan la barqaban oo aan beeraha wax soo saar aanan ka sameynin. Sidoo kale waxaa socda dadaallo lagu soo saarayo shidaalka waddankeena ah. Haddii iyada suurto gashana, waxaa laga yaabaa in cadaadiskaas dhaqaale aan ka maarano. Marka dagaalkani ma aha mid fog oo ka socda keliya bariga dhexe, waa mid saameynaya qiimaha aad ku iibsanayso cunto, shidaal iyo noloshaada maalinlaha ah.
su-aashu waxay tahay dagaalka ma istaagi doonaa sida hadda caawa lagu wado heshiisyada socda oo la leeyahay oo Maraykanka iyo Iiraan wararkaas hadda suuq ku jiro, mise waxaan sugi doonaa inuu dhaco dhaqaale xumadii ugu darneed oo ka daran 1973